xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa waxaa lagu sameeyay isku aadka koobka General Daoud ee xil ciyaareedka 2020 waxaana ka soo qayb galay xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Yuusuf Muxidiin xubno ka tirsan guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya gudoomiyaasha kooxaha iyo marti sharaf kaleeto ugu horreyn goobta waxaa ka hadlay agaasimaha farsamada xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaana uu sharaxaad ka bixiyay tartankan iyo faa'iidada uu leeyahay kooxaha ka qayb qaadanayo laakiin waxaan rabaa kaliya inaan ku baraarujiyo kooxaha maadaama koobkan uu yahay koob si sahal lagu heli karo haddana isla markaasna ah koob weyn oo qiimo leh in la soo bandhigo mataqaana ciyaar wanaag oo ku dhisan asluub farsamo waana diyaar garowgii horyaalka marka nin walba wixii uu ku muujiyo General Daoudka ayaa lagu arki doonaa horyaalkana marka kani waxay idin tahay meeshii aad ku soo bandhigi lahaydeen ciyaar wanaagsan oo runtii leh qurux badan oo loo baahan yahay in horyaalkeenu uu noqdo ciyaar fiican marka sidaa darteed waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin inaad soo bandhigtaan ciyaar wanaagsan oo ku dheehan fair play wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xogayaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Yuusuf Muxidiin ayaa waxa uu ku dhawaaqay in 20 bisha si rasmi ah loo baasan doono tartanka kubadda cagta General Daoud oo ay ka qayb qaadanayaan 16 kooxood oo kamid ah heerarka kala duwan ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta tartankan oo ah tartanka uu soo agaasimo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo ay taakuleyso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka qayb gala sida caadiga ah xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta uu go'aamiyay inay ciyaaraan 8 kooxood ee ugu horeysa heerka koowaad iyo 8 kooxood ee ugu horeyso heerka labaad saasa waxay ku noqonayaan 16 kooxood kooxaha ku ciyaari doona oo ka qayb gali doona tartanka koobka General Daoud oo halkaan aan runtii ku sameyn doono qorituurkiisa oo noqon doono qaabka group stage-ka ee 4 groups ah oo ay groupkiiba ka qayb gali doonaan 4 kooxood sida la socotiin xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta wuxuu mar walba u taagan yahay horumarinta kubadda cagta waxaana runtii looga mahad celinayaa gudoomiyaasha kooxaha mar walba siday runtii ugu bixiyaan juhdiga soo saarista ciyaarta kubadda cagta kuwaasoo faa'iido u yeesha matalaadda qaranka Soomaaliyeed qaybta kubadda cagta isku aadka ayaa waxa u dhacay sida tan groupka ee waxa ku kulma kooxaha kala ah Horseed Patroolka Raadsan iyo Hegan groupka B waxa ku wada kulmay Muqdisho City Club Badbaado Gantaalaha Afgooye iyo Gaadiidka halka groupka C ay ku wada kulmeen Dekedaha Jenyo Saxafi Waxool sidoo kale groupka D oo groupka afraad waxa ku wada kulmay Elman Geeska Afrika Jamhuuriya iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Midnimo